hoolkan waxa uu ka mid yahay hoolasha ku yaala magaalada Hargeysa waxa lagu qabtay bandhig loogu talagalay wacyigelinta maandooriyaha waxa ku casuunaa oo lagu casuumay abwaan Yuusuf Shaacir oo kamid ah abwaanada madax dhaqameedka reer Soomaaliland waxa uu ka hadlay amba uu soo bandhigay maansooyin ku saabsan la dagaalanka maandooriyaha sida qaadka iyo sidoo kale xashiishada mahadda koobaad Ilaahay baa leh iyo talabaad iyo saddexaadba waxa kalaanu mahadnaqayaa labada urur ee kula ka soo agaasimay gurmad iyo ibn khaduud waxa kalaanu mahadnaqayaa akhyaarta sharafta ka soo qayb gashay saxaafadda iyo macallin guule dalxa oo hoolka isaguna inoogu deeqay inta kadib kulay waska waqti waxaan isku dayayaa inaan si kooban intii macquul ah aan barnaamijka si aan u dhadhankiisuna u lumin waqtiguna u dheeraan ayaan isku dayayaa gabyaagu had iyo jeer wuxuu u taagan yahay mar walba bulshada iyo waayaheeda wixii ku soo kordha iyo wixii dib u dhac ku yimaada ayaa gabyaagu mar walba soo gudbiya soo weer dhamaansada dadka waayihiisiyo wajigiisa kama qoro adraawi baa yidhi Ilaahay u naxariistay kaalintaasuu gabyaagu bulshada ku leeyahay gabaygan caawa wuxuu igu dhashay inaan tiriyo 14 sanadood ka hor markaasaan safar ku tagay dalka Ingiriiska ayaa habeen xaflad ka qayb galay dabeetana buugaag badan baa lagu soo bandhigay nin baa i siiyay buug ka hadlaya deegaanka iyo mashaakilka ka taagan buuggii markaan akhriyay baa waxa igu soo dhacay inaan gabay ka tiriyo dabeetana gabayga aan qaadka iyo deegaanka isku xidho una bixiyo gabayga geed cunaya dabeetana may suura gelin caawun baa alla qadaray in kooban waxaan ka odhanayaa taariikh ahaan qaadka horta drugs oo dhan ama waxaan maandooriyaha la yiraahdo dhan barigii hore waxaan ka gabi jiray qaadka kaliya laakiin maanta waxa laga gabayaa maandooriyo oo dhan way qaadka wax badan baa ku soo biiray laakiin waa ka ugu saameynta badan qaadka marka qaadka bal bilowgiisii baan isku dayayaa inaan kalmad ka idhaahdo qaadku wuxuu inaga soo galay inaga wanagu cusub yahay laakiin meelaha qadiimka ah Itoobiya iyo Yemen baa kamida ee muddada dheer ka baxayay marka wuxuu inaga bilaabmay herar meesha la yiraahdo waxay ahaan jirtay taariikh dheer xarun cilmiga islaamka ama diinta islaamka xarun loo doontaa bay ahaan jirtay dabadeedna culimadii halka fadhiday ee kutubta raacan jirtay ayaa qaadkan habeenkii ku soo jeedi jiray waayo dadka firfircooni buu geliyaa dabadeedna waa markay u bixiyeen erayga ah qowd awliyo markay erayga yiraahdeen culimadaasi kutubtay ku raacan jiray oo ku soo jeedi waxa soo labeeyay qoradii loo oran jiray taraashibka baabuurtii u kala gooshi jirtay ilaa jigjiga ilaa halkan raashinka guri jirtay darawaladii baabuurta wadi jiray oo bariga yareydba ayaa iyaguna safarka iyo taraaga ugu soo jeedi jiray habeenkii waxa soo sadeexeeyay tijaartii ama ganacsatadii magaalooyinka ayaa galabtii markay qadeeyaan ka bacd ilaa 5 galabnimo intaas iyaguna ku sheekaysan jiray horta qaadku saasuu inoogu bilaabay maantana waa ogtihiino baalashle ilaa siyaasi ilaa taajir wayna saamay waxyaabahan la yaabay waxa kamid ah shalay waxa iga soo horbaxay laba inano dhalinyaro ah oo midba geed buu sitay oo ku xaragoonaya walagu xaragooday marka xaragoonaya nin baa yiri cadaan ayaa wuxuu marayso meesha qaadka lagu iibiyo qayladii buu yaabo dibatana wuxuu yiri diniyo adduunyada muqaadaraadka ama waxyaabahan drugs way ka jira laakiin sidii nan waa baalka wala la dhuuntaay wax sanka la iska gelinaya halkii aan ku arkay inaga waa lagu xaragoonaya waxyaaba cajiibka marka qaadku mashkaladaasu imaka inala maraya
waxa cajiibka ah bishii 7aad imika bishii 9aad baynu ku jiraa 2022 bishii 7aad ayaa ganacsatada qaadka ee Soomaaliland yaa shiray waxay go'aansadeen in qaadka Itoobiya ka yimaado joojiyaan iyagoo ku sababeeyay in lagu qaali gareeyay waxaana yiraahdeen waxaanu ka keenanaa Yemen iyo Kenya markiiba dawladda Itoobiya wafdi bay soo dirtay dawladda Soomaaliland baa lala shiray qaadoli baa lala shiray arrintii waa la xaliyay aad baan ugu bogaadinayaa dawladda Itoobiya talaabada ay qaaday waayo waxay ka talisay danteedii laakiin inagu maxaynu ka talinaa de waaba suuragal in la wado oo aanan ogeyn laakiin waxa muhiim ah inaynu wax ku bedelano qaadka fariintan ka diraya waxa weeye kaga baxaya waa ogtiin maanta siyaasigii aqoonyahankii taajirkii abwaankii suldaankii qofuu dhaafay ma jiro waa la wada fadhiyaa qofka qaadka cunaya waa qof ka qayb qaatay burburkeena dhaqaale iyo dumista nolosheena qof kasto qaadka cunaya mana mudna runtii inuu intuuna hor yimaado wax inoo sheego waayo islaamku wuxuu leeyahay waxa aad ummadda ka waaninaysa naftaada ka bilow adigoo geed habeenkii cunay galabtiina geed cunay inaad wax ii sheegto waxa ka qurux badan inaad horta adigu mashkaladan joojiso ayaa ka qurux badan dabadeetana aad wixii waana ama fariina aad ii sheegto waxaan u soo jeedin lahaa in dheergaradka bulshada ama hormuudka bulshada inay ka noqdaan tallaabada koobaad inay qaadka joojiyaan markaana ummadda ay fariin u diraan taas qaadkan ka odhan lahaa xashiishada ayaa iyana imika inagu soo korodhay oo farabaasina ku haysaa waxaa iigu horreysay xashiishada maqalkeeda 1984 meelahaas ay iigu horreysay maqalka xashada waa dhowr iyo 30 sano waxaan ku maqlay arday hindiya ka timi oo si wax ka yihiin oo qofku iska qoslayaa nolol khayaal ku jira farxad buu iskaga jira dabeetana waxana la ku yiri marka war dadka noocan waa maxay inay ku hindiya ka yimaadeeno bahal xashiishad la yaahdo ayaa lagu isticmaalaa bariga hindiyaba cuqdad baanu ka qaadno qofka qabtaba waxaan soo jiray xashiishadu soo baranaya barigaas ayada iigu horreysay imika halka inala marayso waa aragteen oo imika qaadkaaba la raaciya baradhoodan buu hooda tagay waxa la sheegay joog dhan oo xashiishada oo buu hooda lagu qabtay oo hargeysa lagu soo wariyay oo dushana muqmad baa la saaray hoostana xashiishad baa ku jirta waxa kale oo wajaala lagu qabtaa iyadoo khudaar la soo raaciyay nin doctora ayaan ka barnaamijku ka diyaariyay ka dhageystay doctor Mumbi baa leeyahay wuxuu leeyahay ardaydu sheegay marka waxyaabaha uu ka digay waxa kamid ah buu yiri inay xusuusta iyo fikirka labadaba wax yeelayso way adag tahay buu ardaygu inuu sii wadi karo waxbarashada haduu xashada isticmaalo iyana waa mashaakilka ina haysta waxa jira xashiishada iyo khamriga iyo qaadka iyo xabagta ciyaalku cabaan iyo kiniinka iyo sigaarka inta waynu naqaanaa laakiin kuwa cusub baa jiray imika soo kordhay waxaan maleeyahay in badan inaydan ogeyn ra'iisyada magaalada miyaa ogtiin in laga joojiyo laga mamnuucay alcoholki qofku markay u xiirayeen marin jireen laga mamnuuc dawladda waxa ka mamnuucday khamriyahan baa loo cabay dabeetana waa la joojiyay oo waxyaabaha imika iyaguna inagu cusub ay soo kordhayeen qolada koonfureed waxaan daawanay iyagoo jinaca kala iibsanaya oo yiri jinaci baa laga helayay oo jinaciba suuq yeeshay wareero leeyahay drug wuxuu noqdayeen waaba lagu sakhraamayaa wuxuu noqdayeen ayaan iyagana daawanay jinaca waxyaabahaasina waxyaabaha inagu soo kordhay
waxaan ku gabagabaynayaa mashaakilka daroogadu inagu hayso ama maandooriyu inagu hayo maaha inagoo qura dadkeennii qurbaha jirayna way naga sii darayeen waayo dhallinyaradii qurbaha ku kacaantay oo dhammi jeelashay ka buuxaan inta badanna waa daraagiska markay iswada dooxeen iyagoo sakhraansan dabeetna waa la wada xidhay halkaasna mashkiladda ayaa ka jirta intaa waxaan ka odhanayaa daroogada qodobka ka muhiimsan ee kalaan gelaya waxa weeye deegaanka geedka saddex nooc baa looga hadlaa geedka mid waxa weeye dadka cilmi ahaan aqoon ahaan u bartay aqoontan maadiga ah qolo kalena waa culimada oo si diiniya uga hadla oo geedku dee waa noole uu tasbiixsanaya qolada saddexaadna waa annagoo si dhaqana ayaan uga hadalnaa saddexdaa haddii la isla doonto way isbuuxinayaan marka anigu si dhaqana ayaan uga hadlaya nolosheennu afar shay ayay ku tiirsantahay afartaa shay haddii mid la waayo way adkaanaysaa kow waa roobka laba waa geedka saddex waa neefka afarna waa qofka afartaa shay baa isku xidhan geedku wuxuu cajiib ku yahay intii aan magaaladu inoo iman ee ay dadku reer miyiga ahaayeen imika waxaa maqashaan golayaasha xeerdejinta anigu malaa waxaan oran lahaa eray ahaan waxaa kaga fiicnaan lahaa xeer beegtida in la yidhaahdee sharci dejinna waa la yidhahdaa wakiiladana waa la yidhahdaa labadaba xeer beegti baa kaga fiicnaan lahaa baan filaya eray bixin ahaane geedka ahaa waayo xeerka halka lagu samayn jiray geedku ahaa waxaa kalaa maqashaan dowladda waxa la yidhahdaa fulintana geedka ahaa wixii go'aanee la gaadhaa geedku ka soo bixi jiray waxaa kalaa maqashaan waaxda saddexaad ee dowladda waxa la yidhahdaa garsoorkuna geedku ahaa sidaasaa loo yidhi geed joogartii waa yaqaan laga dhimayna dhaxalkii waa yaqaan geedku waxa kaluu ahaa bal hadda cajiibka dee jeel ma jirin qof lagu xidhaa noloshii miyiga doo dhismoba ma lahayn geedka ahaa jeel weliba waxaa la odhan jiray ninka loo taag waayo geed quraanjale ha lagu xidho dabeetana marka la xidho quraanjadana cunaysa wuu qaylinayaa markaasuu oggolaanaya wixii laga doonayay taana geedka ayaa ahaa wuxuu kaluu ahaa geedku dee meel la hadhsado meel la seexdo xoolaa la hadhiyo haddana la daaqo xooluu cunaa noloshoo dhan geedku qaybta ugu weyn ayuu ka ahaa saasaan u leeyahay gabagayga aan ugu daray degmadaydu geed bay ilaa dura ku noolay saasaan ugu daray waxaan ku soo gabagabayn lahaa qaybta geedka ama deegaanka oo maanta meel halisa maraya labada shayba waynagu halis labada shayba maandooriyaha iyo deegaanka labadaba waynagu halis qolada reer galbeedka qarbiga ayaa waxay yidhaahdaan haddii ninku isagoo saxaafadda la hadlaya uu tay cas soo xidho xaaladdu waa meel halisay maraysa saasay yidhaahdaan labadaba waynagu halis waxaan ku gabagabayn lahaa wasaarad deegaan hawsha deegaanka taalla way ka culus tahay wasaaraddu way dadaalayaan waxay ii sheegeen ama aan barnaamij ka daawaday bal hadda hadalkaa sanadkii 1 milyan oo geed baa la jaraa halkii sano shantii sano waa 5 milyan tobankii sano waa 10 milyan oo geed maxaa hadhayaa u malaynaysaa waxaana yidhaahdaan qolyaha ku xeel dheeri dhirtu waxay ka tahay dhulka 30% haddii 30% kaa la waayo maxaa dhacaya waxaa dhacaya abaarahan ina haysta waxay yidhaahdaan iyaguna qolyaha sheegaa barihii hore 50 sano 60 sano ka hor abaartu 8 sano ama 10 sano mar bay dhici jirtay dabeetana 8 sano ay noqotay dabeetana 6 sano ay noqotay dabeetana 4 sano ay noqotay 2 sano ay noqotay imika sanadkii bay maraysaa inay sanadkii waa mar dhacday waa aragteen halka laynala marayo jariidada malaa baraha bulshada waa aragteen ayaamahan dhaweed wixii ka soconayay in la yidhi hablihii markay biyo waayeen waxaa lagu khasbay
in guur ay ku bedeshaan qaarkoodna si kaleba looga muraadsado barnaamijyada ku arkaysan jariidada ingiriis ay qortay inkastoo wasiirka qorshayntu uu lahaa ballamaan noo socda iyo kulamo oo arrintaa ku saabsan waxa kaloo jirta iyana mashkilad kale ah in dadkii miyigaba lacagayo loo qoray hay'ado u qoreen qofkaba $80 isaga soo dhacaya qaadkaas uu siisanaya uu iska fadhiya dabeetana beerina ma jiraysa bari dhow xoolana ma jiraya iyana mashkilad kaloo jirta marka waxaan oran lahaa in wacyigelin badan la sameeyo oo waliba 3 qola sameeyaan qolada saxaafadda qolada suugaanta iyo culimada saddexdaasi inay wacyigelin ka sameeyaan deegaanka iyo nolosha miyiga qodobka waa ku talin lahaa inta haddaan ka baxo gabaygaasaan isku dayayaa deebaaq baan u bixiyey deebaaq da waxa la yiraahdaa marka la macneeyo sunta sun ugu qaraar baa la yiraahdaa saasaad ugu arkaysaa gabayada murya deebaaqdu ima karin gabay badan aad ku arkaysaa waxaan tixdaa ka bilaabay galowgii daruuraha cirki iyo danabka faalleeyey cabsidii iyo dareenku qabaa weyda weyntahay daroogada nin laasimay cabdow dayn ka bixi waaye dawaqaada waa lagu yaqaan ruux la duufsaday dal shisheeye goortay ka timi sun iyo deebaaqdu doobkii iyo barbaartii markii doqonta loo laabay doqonta aan ku yaraha kada nacas baa leeyahay waxa shishada anuguna doqon uma ku uriyo xaqan kale ma nufu qofkay ka dhigtaa nacas waalina maaha meel qabna maaha wax kale oo dhaxo isaga garay doobkii iyo barbaartii markii doqonta loo laabay ee doobi xoorliya la dhamay kudiya daacuunka dabadhoonka geel iyo markii duurka lagu qaybshay diric dahabkii haweenkii markii dirica loo iibshay dalkii dhimaye doog iyo dhulkay dabac ku beerayde deegaantii hawdiya lawaado xadii gubane dugaag iyo ugaadhi ka tagay dagaaladoodii dooliya afmeerka ma curtaan dirirkii cawleede dabadheer ku baahdiya arliga waa kan doorsamay damash iyo dhirtaan aadanow doobir ku lahaaye degmadaydu geed bay ilaa dura ku noolayde dabka laga shidyaa iyo qaraab loola daris yaaba dugsi laga heliyaa iyo habeen dool ku gama yaaba dalag noqoyaya iyo si kale dad ugu ay yaaba dama lagu shiryaa iyo golaal laga duceeyaaba dunyada la haystiyo horweyndaaq ka dhigayaaba durujaaga oo diya saqdhaxa dogob kulaashaaba dawo laga heliyaa iyo xanuun lagu dabiib yaaba degmadaydu geed bay ilaa dura ku noolay doog iyo barwaaqada markay daawashada joogto aqal laba daryaala ah aroos dadabta loo xaadhay ubax daraya muusiya hablaha diib la mariyaaba ereyga diib miyaa garanaysaa hablaha isku qurxin jiray geedka gobka leeda caleentiisa ayaa la tumaa dabeetana hablaha isku qurxiya diibka deebna way jirtaa deeb habluhu imika soo afka waxay mariyaan bahal casbay mariyaan soo ma dhaqanka Soomaalida deeb baa loo jeedaa habla afka way madoobayn jiray deebtaasi ku madoobayn jiray marka saasaan u leeyahay ubax daraya muusiya hablaha deeb la mariyaaba deegaanka nolosha iyo dhirtan dawlad ku ahaa dayibkiya hareeriga markii dakhara loo geystay dalsankii galoolkiya markii daraygu naafoobay kaymihii dugsoonaa markii doolar lagu iibshay ama uu nin qaad doonaya dhuxul u day qaatay damaaciga la ootiya markii seere lagu dayray deegaanku inuu xaalufo ama se doorsoomo abaar lagu dayoobiyo inuu diif ka bixi waayo ama ay dabayluhu ruxaan daaqna laga waayo dambigeenna weeyi iyo dhirta aad dabar jaraysaan daandheerta geeli adkaa duraha jiilaalka dulcadaaga lama soo godliya dayrta kii dhalay duleed joogta iyo aarankii soo durdurin waa ka duleedada fadhiya nugulki dayrow daayeer haraadiya haddaad diinka garan weydo doofaarka oomani hadduu kaa dul tegi waayo daraasayntu waxay sheegaysaa doorarkan gabay dantiinimaan aqoon raganimaan duxi ku laabnayn dabayluhuna qaar bay sitaan ina ducaalow dulin iyo qaniin baa ku baxay dagaaladeennii darbijiifka duumada xanuun diilalyadu hayso dayic iyo dhibtooda qalbigu ii damqanaya damba same haddii geel qarqaro dirirku waa weyn
dambabeeradaada iyo haddaad duuga garan weydo inkastaa darwiish tahay wakhtigu waa ku dilaya dudun ciidda kama maydhi karo ruux ku daal yidhi dawaqaada lama iibsadiyo doorka waalida laba daawo dhigataa marbay wax isku diidaane dooni baynu wada saarannahay dul iyo hoosteedi dabaq iyo docdeedi iyo inuu dakhalku iimoobo daliilkii rasuulka iyo xadiis diidan baa jira calayhi salaatu wasalaam nabigana ku sallallahu halkaa aaniga rasuul taago waa xadiis nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusaale nabigu inooga dhigay dunida guudkeedan aynu wada saarannahay inay tahay doontaasoo dabaqya ah dabeetana qolada dabaqa hoose waxay biyaha u doontaan dabaqa sare maalintii dambe waxay yidhaahdeen warniyo dadkan aynu joorjiirano waynu dhibnaye aynu xaggan hoose biyiba innagaa uga dhowey looxahan 2-3 loox ka saara doonta oo biyahan hoose ka cabi haddii doonta xagga hoose la dalooliyana biyibaa soo gelayo way degaysaa xikmadda ku jirtaa waa maxay had iyo jeer kooxa yar baa sameeya xumaanta dad yar baa sameeya dadkaa yar haddii wax laga qaban waayo waa la isla wada degaya aayad kale quraana suuratul anfaal haddaad eegto ayaana odhanaysaa haddaa ka feejignaan weydaan inta yar ee khaladaadka samaynaysa waxay ogaataan inaas wada raacaysaan saasaan u leeyahay dooni baynu wada saarannahay dul iyo hoosteedi dabaq iyo docdeedi iyo inuu dakhalku iimoobo daliilkii rasuulka iyo xadiis diidan baa jira dalka wuu ku soo badanayaa laba diraysluug waa qolo kale iyana doontii dhinac ka daloolinaysa dalka wuu ku soo badanayaa laba diraysluuye doodii fircoon iyo laakiin damaci qaaruune dhaqannada waxdooshiya haddaa daad ku soo jabaye sharka niman dilaalaa jira iyo dooxa geerida waxaa jira rag mashaariicdaba ku qaata sharka noloshu waa shar iyo khayr ninkani mashruuciisu waa shar ama waa inuu ummadda akhlaaqdeeda dumiyaa labadaasay ku qaadanayaan ama waa inuu jidka ka duwaa da'yarta oo islaamnimada ka duwaa wax kale u duwaa mashruucoodu waa intaa sharka niman dilaalaa jira iyo dooxa geerida ee dacwaddii ibliiska iyo ishaa la ysku dagaya ishaasi teenan maaha waa il kale dacwaddii ibliiska iyo ishaa la ysku dagayaaye dusha calanka jeegaanta daran diilinta iyo baaqa doofaarka nimankii jeclaa iyo daarwin baa yimiye da'yarta iyo barbaartaay waxbaan kaaga digaya dalxawgiyo dawaca qayliya wax isma doorshaan dulin hoose duumiya haddii daani kugu beermo ama aad docdaada iyo guryaha daalin ku ogaato daawo lalama yeeshee run baa lagula daalaa doodii abeesadu markay daacad noqon weyday dabagaalla waa kii ka diday dadabgalkeediiye bulshadii dayowda dhulbay doo ku leedahaye durbaankii qabiilkiiyo intay dili iyo qaad joogto ama uu dareenkeedu yahay daalac iyo naasib doolliyo wardheer sheekadii dibiga loo saantay degmadeennu waxay shaabahdaa duulashii lumay dahabkii furaad iyo adigoo dad iyo maal haysta deeqdii ilaahay haddii aad daase garan weydo duufka iyo xumaysta iyo haddii aad dacar u jeellaato dambar lagu wareeriya haddii doqontu kuu raacdo daryeelkii carruurta iyo adigaan dan iyo reer eegin dalow laga inaabsaday haddaad dabada meel saarto hadba dooda baana haddaad duni ka faallooto dib jirtaye habeenkii haddaad daal la kici weydo dabaylaha waxqaadiya haddii daadku kula jiito dadnimada hugeeda iyo haddaad nolosha deelqaafto diinta iyo cibaadada haddaad dayro ka ahaato adigaa naftaadii dulmiyey oo daayacaa baday adaan dalag la sheegiyo lahayn duunya lagu faano durduradan agtaada adigaan daadka celinaynin adigaan dantaadaba aqoon nolol la doonaynin doolaala weeyaan inaad duulalfana taaye dirirtiiyo colaadaha ka jira dunida guudkeeda dabka baxaya duqayntiiyo madfaca dugayda yeedhaysa duulaanka ruushka iyo qarbigan dibinta ruugaya dalandoolka waayaha nin ogi jabis ma dooneene darma lagu caweeyiyo barjaha uma dadaaleene falardaba musbaar iyo intuu rubuc ku soo daalo hadba dumar canaantiya baryada uma dulqaateene dib jir lama fadhiisteen suldaan duubka loo xidhaye dugsigii aqoonta iyo cilmiga lagama dayrsheene doolarka iyo dhaqaalaha markii dabadda loo saaray dulli kama sinaadeen geyigu daasadii foqorka
drop outka goortay noqdeen gaanis daba jooga ama ay daroogada barteen la isku dooxaayo xabsi iyo dalluun bay galeen diriicyadeennii dudmo iyo haddaa waalidkii dabad ka ooya waxba gabaygu yuu ila durkin ee waxaan ku soo dayri doc kastoo la eegaba bulshada dibudhacaa haysta balwadda iyo daroogadan heshaa loogu dawgalaye dawadeeda eebowna sii daayin baa tahay allahuma aamiin tixdaa halkaasaan ku dhammeeyey haddii aad su-aal ay weydiinaysaan way idiin furan tahay wuxuun aan ka wada karaankaygiiba aniga intaa aan u soo gudbiyey cidinama maalgelin cid xumaanaan doonan waa uun hor allah waxaa hawshaanu ku jiraa haddii intaa wax dhaafsan ay weydiinaysaanna ahlan wasahlan